بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال مالمه وإن السيدان تضباطكنا وإن لوريغيا بلهنا وإن لقوا علينيان وإن لأرديان. ولا ليال وطا بشي رمضان دول بالسند باكسو وريغي وبشي رمضان وبشي صونك وبشي ليلة القدر وبشي قرآنك وبشي دعاء وبشي صدقة وبشي تراويح وبشي وناك وبشي اعتكافك وبشي البابدة جنة الفري وبشي البابدة النار الحري وبشي للسلسلتين إبليس يكوى الشياطين تمرددوا دواوين. ولا ليال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم bishan wuxuu ugu bishaareynayay asxaabtiis bishii ramadaan inay soo socoto. nabigu wuu ku farxi jiray, asxaabtana wuu ugu bishaareyn jiray. wuxuu oran jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam, ataakum shahru ramadaan, bishii ramadaan baa inay timid. shahru mubaarak, waa bil barakaysan. farada allahu calaykum siyaamah, ilaahay inagu farad yeelay صونك بشا لصومه. تفتح فيه أبواب الجنة، بشاسي البابدة جنة أيال فرا. وتغلق فيه أبواب الجحيم، بشا نار جحيمنا البابدة دوال حرا أولاد كيا. وتغل فيه مردة الشياطين، شياطين تمرددو دكوغ ووين ولا السلسلة ديا ولا حرا. nebigu waxa uu yidhi wafiihi bishaa waxaa ku dhex jira laylatun hiya khayru min alfi shahrin, bil ka khayr badan, habeen ka khayr badan, 1000 bilood ayay ka khayr badan tahay. dhowr iyo 80 sano ayay ka khayr badan tahay habeenkaasi camalka aad qabatid. nebigu waxa uu yidhi man xurrima khayraha faqad xurrim, qofka laga qadiyo khayrkeega ee laga xarimo ee waaya, nebigu waxa uu yidhi kaasaa hoogay oo baaba'ay oo balaanbalay oo basay. kaasi micno male, kaasaa khayr oo dhan la seejiyey. nebigu sala allahu calayhi wasalam bishaasi aad iyo aad buu ugu farxi jiray, asxaabtiisana ugu bishaarayn jiray. bal asxaabta nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhaahdaa 6 bilood ayay ilaahay baryayeen inuu ilaahay u gaarsiiyo bisha ramadaan. marka ay gaadhaan, ay shaqaystaan, ay cibaadaystaan, 6 bilood ee ka dambeeya ayay ilaahay baryayeen inuu ilaahay ka aqbalo bishii ramadaan camalkii ay soo sameeyeen. walaalayaal, bishan ramadaan waa inaan ku faraxno, waa inaan aad iyo aad iskugu diyaarino. waa bisha khayrka badan. qofka muslimkana waxaa lagu yaqaanaa mawaasim alkhayri waaldaacaat. wuu ku farxaa, wuu bishaaraystaa siduu ilaahay u lahaa waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadathu haadihi iimaana. ilaahay waxa uu yidhi faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan wayastabshiruun. kuwa mu'miniinta ah waxay maalimahaasi iyo suuradda wanaagsan ee soo degtay iyo khayrka ilaahay uu dadka ugu bishaaraynayo waxay u berisaa buu ilaahay yidhi fazaadathum iimaanan, iimaan ba u berisaa. wahum yastabshiruun, wayna bishaaraystaan. inaan bishaaraysanno oon ku faraxno oon iskugu tahniyadayno bishaasi khayr ka badan shahru ramadaan weeyaan. walaalayaal, bishan ramadaan waa inaan ilaahay in badan ugu mahadinno. ilaaha ina gaarsiiyey
bisha khayr ka badan ilaahay na gaarsiiyey. Imise qof baa doonayay bisha inuu gaadho laakiin aan gaadhin, oo maanta arlada hoosteeda ku jira, oo xabaalaha ku jira, oo qubuuraha ku jira. walaalayaal, imise qof baa doonayay oo niyadda ku hayay inay bishaasi ay cibaadaystaan laakiin maanta aan cibaadaysan karayn. imise qof baa keliyaha laga maydhaa, imise wadnuu xanuunayaa, imisaa waayeel noqday, imisaa karayn bisha ramadaan in ay soomaan. ilaaha ina gaarsiiyey bishaasi ramadaan waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan aan ugu mahadinno. ilaaha na gaarsiiyey bisha ramadaan waa inaan ilaahay in badan aan ugu mahadinno subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxyaalaha waajibka ah bisha ramadaan mar walba waa waajib, laakiin bishanay sii adag tahay. waa inaan ilaahay u toobad keenno, ilaahay waa inaan u noqonno. rabbigaa ina abuuray waa inaan u noqonno oon u toobad keenno, oon macaasidii iyo dunuubtii aan ka toobad keenno. maxaa yeelay dunuubtu iyada ayaa qofka u diida tawfiiqda in daacada iyo cibaadadu ay ku fududaato. waxaa kuu diidaya waa dunuubta. sidaa awgeed waxa uu odhan jiray alxasan, yani dadkii taabiciintii qaar ka mida waxay odhan jireen laa nastatiicu qiyaama alleyl. mid baa ku yidhi laa nastatiicu qiyaama alleyl, habeenkii salaatuleylka ma karno, way nagu adag tahay. markaasaa waxa uu ku yidhi qayadadka khataayaak, waxaa ku xidhxidhay oo firaashka kugu xidhxidhay waa dunuubtaadii. dunuub baad samaysay waaweyn oo hurdada kugu dhejinaysa, oo keenaysa inaad kici weydid ood khayrka u ordi weydid. bacdu salaf waxa uu yidhi xurrimtu qiyaama alleyl sana. sanad idil baan kici kari waayey, salaatuleylkii u kici kari waayey. waa maxay? bidanbin camiltuhu, dembi yar oon sameeyey ayaan salaatuleylkii la iga xarimay, la ii diiday, hurdada la jeclaysiiyey. waa dembi yar oon galo. idan dunuubtu khayrka iyo wanaagga ayay ka horjoogsanayaan, way ku qayidayaan, way ku xidhxidhayaan. daacaddaa ilaahay waa kugu culusaani. sidaa awgeed haddaad karayn bisha ramadaan inaad cibaadaysatid, waa khalad weyn, waa gaf weyn, waa dembi weyn. sidaa awgeed waa inaad toobad keentid, ilaahay u noqotid. maxaa yeelay waa bishii khayrka loo ordayey. toobada waa inaan jadiidinno, waa inaan ka murugoonno wixii naga dhacay, waa inaan wixii aanu dib u samayn, waa inaan goosanno inaanu dib ugu noqon. wixii dadku ay nagu lahaayeenna waa inaan dadka waxoogii aanu celinno. sidaa awgeed walaalayaal, waxaan iniigu bishaaraynaynaa inaan inii soo jeedin doonno bishan kariimka ee wanaagsan mawaadiic aad iyo aad muhiim u ah. 10 xalaqo ayaa inii soo socota. xalaqooyinkaa waxaa ka mida yaa baaqiya alkhayri aqbil, waxaa ka mida jadid xayaatak, waxaa ka mida sacaadatii istiqaamatii, waxaa ka mida ramadaanu khuطuwaatu naxwa tagyiir, waxaa ka mida xaqiq axlaamak, waxaa ka mida widaacan lilkasal, waxaa ka mida khaluuna nujadidu alcahda maca allah, waxaa ka mida jadid xayaataka maca alqur'aan, iyo mawaadiic kale. walaalayaal, waxaan ini leenahay ramadaan mubaarak, waxaan ini leenahay taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. waxaan leenahay allahu akbar, hilaalu khayrin wa rushdin, allahumma ahilhu calayna biاlamni waaliimaan waasalaamati waalislaam. waxaan leenahay hilaalow rabbii wa rabbuka allah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.